kuwanuna waa farcankii isxaaq ina ibraahim isxaaq buu dhalay isxaaqna 40 sannadood buu jiray markuu guursaday rabeqa ina batu'eel kii dalkiisu ahaa suuriya ee reer fadan araam iyadoo ahayd laabaan kii dalkiisu suuriya ahaa walaashiis isxaaqna naagtiisu rabbiga u baryay maxaa yeelay madhalays bay ahayd rabbiguna waa ka aqbalay markaasay naagtiisii rabeqa uuraysatay carruurtiina uurkeeday isku riixriixeen markaasay tidhi hadday saas tahay maxaan sidan u ahay kolkaasay u tagtay inay rabbiga wax weyddiiso rabbiguna wuxuu ku yidhi iyada 2 quruumood baa maxalkaaga ku jirta oo 2 dad oo kala duwan ayaa uurkaaga ka soo bixi doona oo 2 dad midkood baa ka xoog badnaan doona dadka kale kan weynuna wuxuu u adeegi doonaa ka yar oo markii wakhtigii ay umuri lahayd dhammaaday bal eeg waxaa maxalkeedii ku jiray mataano oo kii hore wuu soo baxay isagoo cas korkiisa oo dhammuna wuxuu ekaa dhar dhogor laga sameeyey magaciisuna waxay u baxsheen aasaw dabadeedna waxaa soo baxay walaalkiis gacantiisuna waxay ku dheganayd carabta ceesaw magaciisiina waxaa loo bixiyey yacquub isxaaqna 60 sannadood buu jiray markay iyaga dhashay wiilashiina way koreen oo ceesaw wuxuu ahaa nin ugaadhsiga aad u yaqaana wuxuuna ahaa nin duurgal ah yacquubna wuxuu ahaa nin aamusan oo teendhooyin degi jiray isxaaqna wuu jeclaa ceesaw maxaa yeelay wuxuu cuni jiray hilibkiisii ugaadha rabaqahna waxay jeclayd yacquub wuxuu karsaday fuud markaasaa waxaa duurka ka yimid ceesaw wuuna daalanaa markaasaa ceesaw wuxuu yacquub ku yidhi waan ku baryayaaye isii aan cune fuudkaas cas waayo waan daalanahay sidaas daraaddeed magaciisii waxaa loo bixiyey edom yacquubna wuxuu yidhi maanta iga iibi conadnimadaada markaasaa ceesaw yidhi bal eeg geeri baan ku dhowahay haddaba conadnimadu maxay ii taraysaa markaasaa yacquub ku yidhi maanta ii dhaaro kolkaasuu u dhaartay conadnimadiisiina wuxuu ka iibiyey yacquubna wuxuu ceesaw siiyey kibis iyo fuud digir lagu sameeyey wuuna cunay oo cabbay markaasuu intuu kacay iska tegey sidaasuu ceesaw u quudhsaday conadnimadiisii